culimaauddiinka iyo caaqilinta waxaan u sheegaynaa dhammaantood maanta Ismail sheikh ishaq sheikh nyare inaan u dhiibannay ushii qabiilka impiinimadii certificate qabiilka loo dhiibay oo aan ugu baahannahay dhammaanteen inaas nagu mideeyo tollahaan wajiyaystahaan walaalahaan inaas nimideeyo ayaan ugu dhiibannay waxaana kula daardaarmaynaa walaalkeen insha Allah taala khayr Allah siiya waxaan ku dhiibnay waa xil xoog badan oo adeeg badan ilaahay subhanahu wa ta'ala kula garab gala ilaahay subhanahu wa ta'ala kula garab gala anagana waxaan shaacinaynaa oo bulshada walaalahan qaybaha kale u sheegaynaa dhamaantoon inaan ku soo caanashoono walaalkayn Ismail sheikh ishaq wiilashii la taagnaad oo walaalahiis ahayna garabka ay hayaan insha Allah taala intaas inana gala gudoomiyo umaan diyaarownaana family candidate unity waxa waaya Ismail sheikh ishaq anagoo dhan waa ka dambeynaa biidnillahi kareem we'll do everything possible for him to get that seat everything possible xoog iyo xanada time everything maya waa asagaan soo qaadanay waa ku midaysannahay wax naga maqan ma leh sida wada arkaysiin ninkan walaalkeena maadaama annaga aan kulligaan waxaan wada raadinaynay laakiin maanta asagii ay u soo qaadanay cidda midnimadeeda anigoo weliba ku dara luqadda Ingiriiska we will not leave any stone unturned this time round inshallah waana ku guuleysanaynaa biidnillahi kareem walaalayaal garaadyaha ogaasinta martida nooga timid Gaarisa kuwa ka yimid Mandera kuwa tuulooyinka nooga yimid Konton Qorab Xareer Qarsa Riba Wajeer Boor Sitawaariyow Laambib Ceelbeen Lafaaley Arba Qayraanso Qajaaja iyo dhammaan meel kasta ka yimaadeen maanta qabiilkan ciidan waxa ay u kulantay arrimo siyaasadood oo muddo dheer since 1969 ay raadinayeen maray tanaasuleen maray istaageen oo ay dhaceen iyo mar dad ay December qabiilkan waxa lagu xantaa lagu magacaabaa mideeya waa kuwii dadka mideeya waa kuwa sidkooda isdhaafiya waa kuwa u tanaasulo waa kuwa martida soo dhaweeya waa kuwa dadka u gargaara u adeega maadaama muddo dheer ay soo tanaasuleen dad kale ay dhisayeen muwaafaqo ay raadinayeen waxaan rabnaa wakhtigaan la joogo xiisaha iyo qiiraha ay muujiyeen inay noqoto mid rumtowdi mid run laga dhigay naftiis hore baan ahay insha Allah wakhtigaan naftiis hore soo ma garanin meeshaas aan tagaynaa dadkaan baryaynaa Wajeer istukurheeda waad garanaysiin qabiilkan kaliya ma keeni kara 30,000 oo kura ka soo dhacaysa faa'igaan u doonanaynaa dogoodiyaha intiisa kale aan u doonanaynaa masarahan u doonanaynaa geeliblahan u doonanaynaa dumeel kastaan u doonanaynaa mataankaan u doonanaynaa jibraa'iilkaan u doonanaynaa aadan yaraan u doonanaynaa idriisaan u doonanaynaa murulaan u doonanaynaa garraan u doonanaynaa ajuuraanan u doonanaynaa ogaadeenaan u doonanaynaa hartiyaan u doonanaynaa carabaan u doonanaynaa Kenyada kala ku ka yimaadeen Meru Kikuyu Mukamba aan u doonanaynaa kurahaas insha Allah markaan soo galnana si cadaalad aan ku dhaqaynaa cidda waxaan u doonaynaa horumar Wajeer East waxaan u doonaynaa horumar meel kasto joogaanba ganacsiga inaan furno xoolaha inaan ka talina arrimahooda biyaha wax kasta oo dadkaas ay u baahan yihiin ayaan u adeegi doonaa iskuulaha macallimiinta ay ka cararayaan nabad darrada waxaas dhan aan ka dadaali doonaa insha Allah walaalaheen midka hadda ku jiro geedkana lagu soo dhisi
meeshaan maanta aad aragteen oon fadhinna annaga ayaan ku soo dhisnay meeshuu bulshadu kula kulmaya ay ahayd meeshii lagu martiqaadaya ay ahayd waxaan leenahay adiga oo mahadsan oon waxun kaa sheegaynin qabiilkaadi ku soo dhisayaan nahanay inaad noo tanaasusho oo sidaan kugu tanaasulnay hadda ka horeba aad nooga tanaasusho ayaan doonaynaa mar kasta garabkaadaan dhahaynay markaad ku jirti iyo markaad doonaysiba garabkaadaan dhahaynay ee maanta annagana noo hambeey maxaa yeelay weelka waa laysa dhidhiibaa soomo maanta adaa ku jiro berrina annagaa kugu jirno saasaad ogaanaysaa inta kaloo naala tartamaysa si fiican aan u tartami doonnaa si wanaagsan aan u tartami doonnaa annagana waxaan u malaynaynaa safartan wakhtigeenna inuu yahay saas iyo nabadgelyo mandheera ayaan ka imaaday tolka reeaabbahaa ii yeeray hadday ii yeereen arrintaanay iigu yeereen wiilal badanaa taagnaay wiilasha inaan kala reebna oon midkood soo bixin ay iigu yeereen waa iisu imaannay 3 maalinaan joognay waa fariisannay waa hadalnay wiilasha ayagoo isku too oon kala jecleen annagii martida ahayd markii noola dhiibay shaqadii waxaan aragnay inaan ma aragtay wiilasha kalena faataxada u marna Ismail sheikh isaaqna aan soo qaadna tolkii ree aabbahayn oo magaaladan deganay oo qabiil kastaa leh waxaan ka codsanaynaa inay garabna siiyaan Ismailna lala qaada ma aragtay insha Allah taala ninka hadda ku jirona sidii ma aragtay Ismailkaba aad sheegay asagana waa la kulmi doonaa waa ka codsan doonaa inaad gacanna siiyaan ka codsanaynaa insha Allah taala waana lagu guuleysana